labiyo tobankaas calaamadood waxay ahaayeen 12 calaamadood ku garan kartid ruuxa narcissistiga ah guurka ka hor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada mar labaad. maanta waxaan maartay u daaran yahay codkeenu siyaabaad ku ogaan karto narcissistic inuu yahay lamaanaha guurka ka hor. marka lamaanaha narcissistic ma yahay guurka ka hor ogow waxaan sheegi doonaa insha Allah 12 ama 12 calaamadood aad qofka ka arki kartid intaydaan maartay isla guri galin oo aydan wax isku darsanin. xalqadan waxay aad iyo aad u anfaasaa gabdhaha iyo wiilalka ku jira xiriir ay rabaan inay maartay guur u bedelaan oo maartay guurka ka horeeya si aan ay maartay noloshooda dambe uga shanlaynin. waan ognahay dadka narcissistic ay sida ay maartay dadka noloshooda ay u burburiyaan ay una xumeeyaan. tusaale waxaan ka soo qaadanay inantii Asma Qurux iyo Qoorgaab hadii la haydno qaabka isku barteen iyo waxaas qofka garanaya cilmi nafsiga bartay ee waliba maartay aad iyo aad ku takhasusay narcissistica wuxuu fahmayaa inay jireen calaamado fara badan oo guurka ka horeeyay oo hadii ay Asmi arki lahayd ay aqoon lahaan lahayd ay ogaan lahayd qofkani inuu yahay maartay qof narcissistica oo xiriirkan uu yahay xiriir samaysan. marka ku soo dhawaada sida ay sheegaan culamo nafsigu waxay yiraahdaan narcissisnimadu ama narcissigu waa heerar kala sareeya iyo noocyo kala duwan. ونارسيسكوda nooc maaha waxa jira narcissistic dadan oo ay dhahaan kafar narciss iyo narciss muuqda way fududahay narcissiga maartay muuqda inaad markiiba baratid oo aad maartay aragtida dad calaamadihiisa taqaanin. qofka narcissiga muuqda ahi wax markii wax arkaysa isla weyni iyo maartay faan dadka ana maartay waxaasan sameeyay in hebel baanahay shaqadan intaasaan le shaqasaasaan le xilkaasaan haya lacag intaasaan le horumarkaasaan gaaray dadkana maartay shaqadiisa dadka shaqadooda iyo wax qabadkooda uu hooseysiinaya dadka maartay waxyaabaha ay sameynayaan oo dhan ka dhiga wax liida isaguna isa sareysiin wax kasta uu qabto iyo wax aanu qabaninba. marka calaamadihiisu aad iyo aad markiiba u muuqanayaan sida uu maartay suulan yahay sida dadka waxa qiraayo sida uu dadka maartay uga dhigayo waxba yahay laga yaabo marka qaranka dadku dhaanay dhimanayaan hablaha ay oo dhan bay jecel anigu laakiin adoo kaliya ku rabaa waxaas oo dhan waxay ku sheegeen qofkan inuu yahay qof narcissistic laakiin halka ay dhibtu ka jirta waxa weeyaan narcissistic daahan kala leedahay qof narcissistic kaas waxa laga yaabaa inaad sanado dheer la noolaatid adigoo aan garanin qofkan inuu narcissistic yahay adigoo aan fahmin qofkan inuu narcissistic yahay. badanaana dadka ugu badan narcissistic dhibaatooyinka ugu badan geysta waa narcissigaas daahan ama qarsoonaan. waayahay marka insha Allah waxaan kula wadaagayaa calaamada koowaad aynu guda galnay dadkan waxay ku muujinayaan inay yihiin dad adaab badan dad ixtiraam leh dad wanaagsan dad maartay dadka daadooda ah oo dhan ka duwan oo ka wanaagsan oo yarta inaad maartay oo kala heshid. wax laga yaabaa inaan hadal badnaynba qaar hadlaaway jira laakiin wax badankoodu waxay badeen qaar aan hadal badnayn waan hadalku maartay ku yar yahay sababtoo ah ma rabaan inay ka shifmaan oo maartay wax ka soo muuqdaan ama maartay ay hadal ka soo dhacaan ma rabaan saawgeed waa dad qarsoodi badan oo ku hareereysan yihiin wax badan kama ogaan kartid aamusnaantoodu way iska badanta. calaamada labaad aad qofka ku garan kartid waxa weeyaan aro aan macno lahayn in qofku maartay wax yar hadaad weydiiso uu iska caroodo laga yaabaa arin aad madmadow kaaga jiro aad maartay aad u baahantahay inuu wax kaaga sheego ama fasir ka siiyo hadaad weydiiso in qofku markiiba iska careysiyo oo uu dudo halkaana maartay oo dudo oo hadalkaaga aanu dhageysan adiga fikirkaaga aad dhiiban karin waayo ma jecla dadka kale fikirkooda wax la wax qadarin uma hayaan dadka dareenkooda qadarin uma hayaan iyagun baa muhiima. calaamada saddexaad qofkan wuxuu ku muujinayaa idinkoo wax yar is yaqaan oo waxba isaqoonin inuu maartay ku jecel yahay in xiriirkiinu ka dhab yahay inuu maartay ku rabo inuu arintaada danaynayo warkaaga si fiican u dhageysanayo halka hoosta ka xariiq sababta qofka narcissiga aan wuxuu ku yahay inuu inta hore xiriirkiinu cusub yahay inuu aad iyo aad ku dhageysto aad iyo aad warkaaga u maqlo isaga warkiisa aanu badinin inuu isagu maartay warkiisa ka sheekay sababta adiga ayuu xog ka gurayaa
adiga iyo xogtaada raba si uu hadhow toole xogta ugu howlgalo marka isaga warkiisu markiiba xiriirkiina waxaad arkaysaa marka calaamadihiisa waxaa kamid ah xiriirkiina inuu degdegayo markiiba uu maaragtay xiriirku si degdeg u socdo iyadoo oo aan waqti badan aydan isu qoynin sababtoo ah wuxuu iska ilaalinayaa inaad waqti badan inaad isbarataan inaad baratid wuxuu yahay ciduu yaqaano xiriiradiisa foosha xun leh waayo qofka narcissiga mar walba xiriiro fara badan oo fool xun buu ku jira dadka ku hareeraysan badankooda laga yaabay inay ogyihiin ama aanay ogeyn marka wuxuu ka baqayaa inaad waqti u heshid inaad ceebihiisa ogaatid si awgeed xiriirkiina uu ku dadajinaya calaamada afraad waxa weeyaan qofka narcissiga wuxuu ku dadaalaya inuu dadka oo dhan ka fogeeyo oo uu dadka cidla ku dhigo يعني توس هكو راهدو dadka ka fogow dadkaas ma wacna dadka ka har dadka kulama jeeli toos ha kugu raahdo ama si dadban ha u balangaray in dadka oo dhan ka fogay laakiin waxaad is arkaysaa markii adiga oo maartay aan isaga mooyaane sokeeye kala lahayn isaga mooyaane cid kale hadalkooda aan maqlin isaga mooyaane cid kale aan martay aad ag joogin marka sidaas ayuu dadka oo dhan kaaga fogeynaya ujeedkiisuna waxa weeyaan inaan cid kale ku sheegin xiriirkan inaan caafimaad qabin inaad xog helin dadka marka ay sheekaystaan lagu yiraahdo hada sidaas si sax ma aha dadku saasay sameeyaan qodobka shanaad ayaan guda galaynaa waxaan rabaa inaan waqtiga inoo koobo qodobka shanaad hadii aad maartay qofkan wax ku raahdo samee oo aad diidid ama aad ka cudurdaartay waxa ma sameyn karo wuxuu ku adeegsanayaa ciqaabta aamusnaanta oo ay caan ku yihiin dadka narcissiga inay markiiba kugu ciqaabaan inay ka aamusaan inay hadalka ka xidhaan inay maaragtay aad maqal iyo muuqaal meel ay joogaan ba aad weydid aad iyo aad ay caan ugu yihiin silent treatment oo ah inay ku dudaan adiguna aad maaragtay dhibaatootid waayo qofka bini'aadanka waa maxaa la dhahaa waa ixtiraam darro halka ugu sarreysa in qofku maaragtay kula hadli waayo hadalka ka xidho taasna waa ciqaab ay adeegsadaan dhaqanka ah silent treatmentiga ama ciqaabta aamusnaanta waxay kugu barayaan inaad iyaga mar walba aad raali gelin bixisid oo xataa hadii isagu wax sameeyo ama arinta aad maaragtay aanay ahayn ba arin qalad aad ka gashay hadana inaad raali gelin sameeysid ay ku barayaan waxay ku barayaan duleynta naftaada inaad naftaada duleysid oo naftaada iyadoo aan wax xumaan sameyn aad raali gelin iyo baryoota aad sameysid si ay kugu soo noqdaan waxay ku barayaan ama kugu abuurayaan cabsi aad ka cabsi qabtid inay ka tagaan inaad weydid oo aad maaragtay saa ku kala tagtaan wuxuu maaragtay waxa uu ku sheegay inaad tahay waxaad ka maarmi karo agtiisana aad wax weyn ka ahayn taasina ay maaragtay maadaama aad noqoto qof ku xiran oo ku xiriirsan oo aan si oxygen aan looga maarmi karin aad uga maarmi karin taasina ay keenayso inaad u hogaansantid qofka narcissiga calaamada lixaad waxa weeyaan qofka narcissiga ma jecla inay barashadiin waqti dheer socoto oo waqti dheer barataan oo aad isfahantaan oo maartay aad garatid aad wuxuu yahay waxa iskuursanaysaan wuxuu markiiba guurkaas ku soo bandhigay iskuursanaysaan adiga oo aan aqoon u lahayn hadii lagu dhaho qofkan waayo aan maartay si fadhaba aan u sifeyn kareynin oo madmadow fara badan uu kaaga hareeraysan yahay oo laga yaabo inaad magaciisa iyo qabiilkiisa iyo wax yar aan macna lahayn laakiin shakhsiyadiisa dhabta adigoo madow badan kaaga xiran yahay ayad markiiba arintiina wuxuu dhaadhicinayaa guur waayo mar raba inuu ku siiyo waqti aad ku fahantid sagaad ku baratid calaamada toddobaad qofka narcissiga ahi dhibanihiisa qofka dhibanaha ama qofka xiriirka la leh wuxuu ka dhigaa mid mar walba wareersan oo aan fahmaynin qofkan yani qaab dhaqankiisa noloshiisa dareenkiisa wuxuu rabo xaguu socdo hadii aad maaragtay istiraahdo ogowna mar walba waxaad arkaysaa soo gidaar adag iskaga ka xidhaya oo xuduud adag ku dhigaya oo aanad ka gudbi kareyn calaamada sideedaad way adag tahay inaad arin gorfaysaan adiga iyo maartay qofka narcissiga sababtoo ah inaad arintaad gorfaysaan arinta uu ku qanciyo ama adigu aad qancisid arin ilaa xad adag weeyaan oo aan suurtagal ahayn hadii aad laba eray tiraahdo markiiba arinta aad ugu soo korreeya adiga xiriirkeena xumaynaya adigan rabin in aan arinteena hagaagto mar walba waxaad buuq badan ugu sameeyay markiiba dabeetna arintu waxay isku bedelaysaa daraama ah dambiila tahay maxaabad waxiga weydiinaysa halkaas waxaad baranaysaa inaanad weligii waxba weydiinin laakiin aad socotido sidii qof ku dul soconaya maaragtay qolof beed soo ilaalin lahaa
aad isu ilaalisid noloshaadana is ilaalisaad ku jirto oo aanad adigu is ahaanin oo aanad adigu maartay ula dhaqan sidii iska caadi qof aan u baahnayn kalifaad laakiin kalifaad aad mar walba ku jirtid iyo is ilaalis iyo kaa xanaaqin iyo iska daxwaha weydiin iska liq calaamada sagaalaad ee muujinaysa inaad xiriir narcissistic kula jirtid waa inaad muuqaalkayga dhageysanaysid laga yaabo inaad yaabtid laakiin maxaa kalifay inaad muuqaalada noocan dhageysatid waxbaad ka wareersan tahay waxbaad aad fahmi laadahay xiriirkan waad fahmi laadahay meesha u socdo saawigeed baa waxay keentay inaad dadaal ugu jirtid inaad fahantid bal xiriirkan maxaa jira si aanu xiriirkaagan kaaga fashilmin oo ma aad u ogaatid xiriirkan ma midaan midho dhalayninba siday jiraan daal fara badan aad dareemaysid oo xiriirkan ku saabsan oo aad garanaynin halkood maaragtay dhibtan kaaga socoto ayaa calaamad u ah inaad xiriir sunaysan ku jirtid xataa haddaan narcissistic ahayn calaamada 10aad inaad mar walba tanaasulaysid waa tanaasuleysaa waxyaabo badan oo adiga ku ahaa qaacido noloshaada u ahaa ayaad ka tanaasuleysaa cabsi baad qabtaa waxaad cabsi ka qabtaa qofkan inuu maaragtay kaa tago cabsidana isagaa kugu beenay qofkan inuu kaa tagayo inuu kaas maaragtay haddaad waxyaabaha samaysid inuu kaasii socdo qofka narcissistic ah inaad waayeysa ayaad mar walba cabsi ka qabtaa taageed baa waxay keenaysaa inaad tanaasulaad mar walba samaysid naftaada iyo karaamadeeda aad maaragtay madaxa kaga istaagtid si aan xiriirkan cabsidaad ka qabtaa inaad weydid aanay u rumoobin abnaad waxa weeyaan qofkan wuxuu kaa ilaalinayaa qofka narcissistic bilowga xiriirkiina wayna ogno laba qof markay xiriir yeeshaan haddii waliba xiriirkooda uu maaragtay yahay mid serious oo laga rabo inuu midho dhalo oo guur iyo maaragtay arrimo la isku darsado labada qof inay isbartaan oo asxaabtooda qolada kale ay barto laakiin qofka narcissistic adiga cid kasta kugu hareeraysan wuu baranayaa cid kasta oo kaa agdhow wuu baranayaa laakiin adiga marna kaa ogolaan maayo inaad isaga dadka ku hareeraysan baratid inaad asxaabtiisa baratid inaad maaragtay dad kula shaqeeya baratid xataa inaad qaraabadiisa iyo eheladiisa inaad baratid yani aabihii hooyadii inaad baratid qoyskiisa inaad baratid qofkan uu kaa ilaalinaya afkiisana ka heli maysid waxyaabo ku saabsan qaab nololeedkiisa iyo dadkiisa asxaabtiisa mowqifyada isla qaataan uu kaa ilaalinaya waxaasoo dhan taasina waxay kuu sheegaysaa qofkani inaad xiriir sunaysan ku jirtid calaamada 12 qofkani inaanay wax allaale wax xuduuda aad leedahay uu ilaalinaya inaanay jirin xuduudahaagoo dhan kasoo gudbaya kuma ogolaanay inaad isaga xuduudka kaga dhigto halkan sidaan soo sheegnay isagu uu noloshiisa dhan xuduud kaaga xidhay aanad kasoo gudbi karin noloshayda miyaad ila leedahay maxaa kaa galay yani anaa nolosha gaar u leh laakiin adigu aanad xuduud samaysan karin مثلا imika hadayna asmo kale tusaale kasoo qaadan sheekadeedii iyagoo aan wax badan is aqoonin ayuu wuxuu ku yiraahday soo qaada maryahaaga safar baan baxaynaa xuduudda ugu weyn ee qof yeelan karo waxa weeyaan inaad aqal shay ka idan dalbatid meesha san tagay may raacaysa xiriirka caafimaad qaba waa sida laakiin qofku markiiba xuduudeedii oo dhan wuu jabiyay si qof aan jirin oo kale in qofkan xuduudaada oo dhan jabiyo oo aragtay aan adiga xuduud ku sameyn isagana aad maaragtay wax kaaga xiran yahay xuduud adag kaaga xirantay aad ka gudbi karan taasina waa calaamad haddaad igu cusub tahay magacayga waxa la yiraahdaa Kawsar Said Xasan ku soo dhawow channelka subscribe hala yiraahdo hala share gareeyo sida ay aqoonta u faafto aqoon loogu yeesho dadka noocaas ee dadka noloshooda burburiya oo in meel ugu soo jeesanaan dadka narcissistic ah intaasaan ku soo gabagabeynaa maanta haddii aad jeceshihiin inaan sheekada asma aan falanqeeyo oo aan maaragtay wax ka yiraahdo calaamadaha ku khaldantay iyo meelaha ay maaragtay ay ku jabtay iyo meelaha ay ahayd maaragtay inay wax ka tiraahdo haddaad jeceshihiin wax ka yiraahdo insha Allah oo aan maaragtay falanqeeyo sidii inay imkan iyada noloshooda way dhacday sababta uga sheekaysan wax weeyaan inay dadka faa'iideystaan dad imkan noloshooda halkii ay stebiski ay maraysa si ay u tilmaamno meelihii ay ku khaldantay calaamadaha ugu waaweyn markay aragtay ay khaldantay inay iska indhatirto haddaad jeceshiin ka hadlo iisoo sheega insha Allah xalqada soo socotan ka hadlaya kommentiyadina waa muhiim inaad ra'yigiina igu dhiibataan